إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم حريستي عبد السلام حيس oo kamid ahaa wariyaashii ka olgana jiray magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya ayaa maanta ay ku geeriyooday magaalada Muqdisho kadib markii askari hubeysan oo watay dareeska ciidamada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya uu la beegsaday rasaas. عبد السلام حيس oo ka howlgalay TV lagu magacaabo Hon Cable oo kamid ah TV-yada ka howlgala Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa wariye kamid ah wariyaasha ugu caansan magaalada Muqdisho waxaana askarigaasi dilay la sheegay in goobta uu ka baxsaday iyadoo ilaa iyo imika aan la ogeyn sababta ka dambeysay dilkaasi loo geystay wariye Cabdi Salaan Xiis. marka rasaasta la beegsaday marka hore dhaawac ayaa soo gaaray Cabdi Salaan Xiis waxaana loola soo cararay cisbitaalka weyn ee Madiina ee magaalada Muqdisho halkaasi oo uu ugu dambeyntii ku geeriyooday. wariyaasha ka howlgalay idaacadaha TV-yada wargeysyada wakaaladaha iyo qaybaha kale ee warbaahinta caalamka ayaa ku soo xoomay xarunta cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho iyagoo ka naxsan dilka loo geystay wariye Cabdi Salaan Xiis oo kamid ahaa wariyaashii saakay si nabad u howlgalay. wariye lagu magacaabo Shariif oo kamid ah wariyaashii goobta uu falka dilka ka dhacay ku sugnaa wax badan ka hayay oo xog ah qaabka dilka uu dhacay. runtii ninka daqiiqada yar aan ismoogeen waxaana israacay asaga iyo ninka isla shaqeeyaan ee Zakariya labadooda way israaceen kadib markay xaruntooda ka wada tageen hotel Madiina marayaan ayaa shilkan dhacay oo nin sita dareeska ciidamada tuutaha wata ayaa xabado wacay markuu salaamay kadibna xabado ku furay xabada dhinacana ka gashay dhinaca kale ay ka baxday kadib Zakariya qeylaaminaa noo yimid anagoo xaafadda Axmed Jim dhinaca ka joogno waan tagnay meesha markaan tagnay waxaan tagnay baabuurkii oo darbi saaran ee ninkii oo dhex yaalo oo neef xun ku jirto kadib ninkii meesha ka soo wada qaadnay baabuur ka soo qaadnay isla baabuurkii asaga wata ku soo qaadnay waxaan keenay Daarushifa markaan joogno kadib ayaa waxaan lagu taliyay in la geeyo isbitaal Madiina sida ku keenay kadib taqaatiirtu way la tacaaleen ugu dambeyntii waxay noo sheegeen inuu ninkii dhintay marka inta kadib marka madaxdii shirkadda u shaqeynay Hon Cable iyo rag eeladiisa markaas la xiriiray waxay ku tashteen go'aan ku gaareen in caawa isbitaalka sida lagu dhigo maalinimada bari subaxna eeladiisa iyo saxaafadii oo dhan inay isku yimaadaan kadibna la duuga saas ayaa marka ay go'aan ku gaareen qaar kamid ah eeladiisa la xiriiray iyo howlwadeenadii iyo madaxdii Hon Cable marka sidaas ayaa go'aan lagu gaaray Allah u naxariiso Cabdi Salaan Sheekh Xasan Xiis. inna lillahi qaar kamid ah saxafiyiinta ayaa ka tacsiideeyay dilka loo geystay Cabdi Salaan Xiis iyagoo sidoo kalena ka hadlay arintaasi iyo dhibaatada saxaafadda ay u geysan karto. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan aad uga xunnahay ilaahay ha u naxariistay geerida ku timi Cabdi Salaan Sheekh Xasan Xiis oo ahaa runtii howlwadeen saxaafadeed saxafi weyn oo Soomaaliyeed isla markaana saxaafadda Soomaaliyeed si weyn looga yaqaanay waan aad baan uga xunnahay haddaan nahay bahda warbaahinta gaar ahaan anoo ku hadlaya magaca telefishinka caalamiga ee Soomaalisaad waxaan leenahay in la yarxamo raaximin ilaahay ha u naxariisto oo godka ha nuuriyo. sidoo kale waxaan cambaaraynaynaa oo aad waliba si weyn u cambaaraynaynaa dadka gacan ku dhiiglayaasha ee la sheegay inay si bareer u dileen wariye Cabdi Salaan Sheekh Xasan Xiis anigoo ku hadlaya magaca warbaahinta Soomaaliyeed waanu ka xunnahay waanu cambaaraynaynaa isla markaana waxaanu leenahay dawladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliyeed mas'uuliyiinteeda ugu sarreeya in ay arinta wax ka qabtaan soona qabtaan gacan ku dhiiglaha sida bareerka u dilay wariye Cabdi Salaan Sheekh Xasan Xiis waana ku celinayaa waxaanu ka codsanaynaa dawladda mas'uuliyiinteeda inay wax ka qabtaan ninkaas ama gacan ku dhiiglaha dilay wariye Cabdi Salaan Sheekh Xasan Xiis waxaan uga tacsiyanayaa guud ahaan warbaahinta gaar ahaan saxaafadda Soomaaliyeed ilaahay ha u naxariisto baan leeyahay waa laf dhabar si runtii saxaafadda Soomaaliyeed Cabdi Salaan waa la xasuusan doonaa meel weyn buuna baneeyay aad baan uga xunnahay waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay ha u naxariisto. waxaan leenahay wuxuu ka badbaaday xabadda hogaamiye kooxeedka wuxuu ka badbaaday rasaastii ciidamada Itoobiyaanka wuxuu ka badbaaday nimankan al-shabaab la yiraahdo xabadooda in maanta uu ku dhinto gacanta dawladda waxa weeyaan waxaan filayna ma aha haba yaraatee wiilasha kibray ee tuutaha dareeska ciidamada dawladda Soomaaliya watana waxaan ku wargelinaynaa in aan looga hareynin oo sida
loo tixraacay nimanka kale ee shabaabka wariyaasha ay dileen in si lamid ah lagu xisaabtami doono dawladdu waxa wariyaasha Soomaaliya meel kasta ay joogaan waan ugu taxsiinaa taas Cabdisalaan Sheekh Axmed Cabdisalaan Xiis ayaa waxa uu kamid ahaa wariyaasha ugu caansan dalka Soomaaliya waxa uu ifka kaga tagay ilaa 4 cunug oo 3 kamid ah ay gabdho yihiin waxa uu ahaa xaasle kamid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho geeridan naxdinta leh ee ku timid wariye Cabdisalaan Xiis oo ay ka naxeen bahda saxafiyiinta iyo dad badan oo laga yaabo in ay warbaahintan Soomaaliyeed kala socdaan warbixinta ku saabsan geerida Cabdisalaan Xiis ayaa ahayd geeri naxdin leh oo si kedisa ku timid ilaa imika lama oga qaabka arintaasi ay wajihi doonto dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya oo ay saxafiyiintu ka codsadeen in ay tallaabo degdeg ah ka qaado maadaama wariyaha geeriyooday lagu tuhmayo askariga dilka u geystay in uu ka tirsanaa ciidamada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ma ahan markii ugu horeysay oo saxafi lagu dilo lagu jirdilo lagu dhaawaco ama loo hanjabo gudaha magaalada Muqdisho iyadoo imika xabsi ku yaala magaalada Muqdisho uu ku xiran yahay wariye lagu magacaabo Xasan Salaad Xasan Laki oo ilaa imika maxkamadina ay xukumin Cabdi Kaamil Yuusuf Maxamuud Somalisa TV magaalada Muqdisho